ومحسنتين بعد warbaahinta madaxweynaha dawladda galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo oo ka kooban labada gole ee dawladda ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho waxaana si diiran garoonka diyaaradaha ee caasimadda ugu soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda mudane Cumar Maxamed Maxamuud Umar Finish gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha baarlamaanka aqalka sare iyo xubno ka tirsan golayaasha xukuumadda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana madaxweynaha uu isaga oo ka jawaabaya baaqii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu magaalada Muqdisho u soo gaaray si uu uga qayb galo shir wada tashi ah oo dhex mari doona dawladda Soomaaliya